kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena Lewaya Films oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwooda haatan u halgamay inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywoodka. haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena Lewaya Films, fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. maqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa 10 tirishe ee ugu lacagta badan sanadan 2020 halka aad nagala socotana waa Lewaya Films. numberka 10aad waxaa gashay Berneti Chopra, inkastoo aysan saameyn badan ku lahayn filmadii ugu dambeeyay sidoo kalena aysan guul laxaad ah gaarin, haddana weli numberka 10aad ayay kaga jirtaa hablaha ugu lacagta badan India ee filimada jila. Berneti ayaa haysta lacag lagu qiyaasay 60 crore. numberka 9aad waxaa ku jirta Shruti Hassan, maxaa yeelay awood ayay ku leedahay koonfurta India ayaana sababtay inay kaalinta 9aad soo gasho. Shruti Hassan lacagteeda ayaa lagu qiyaasay 65 crore. numberka 8aad waxaa ku jirta Sonam Kapoor, film jelista maahe ee Sonam Kapoor waxay caan ku tahay fashionka, waxayna hadda kaalinta 8aad kaga jirtaa liiska atirushooyinka India waxayna haysataa 75 crore. numberka 7aad waxaa ku jirta Alia Bhatt, waa mid ugu macquulsan laguna jecel yahay xilligaani la joogo Bollywoodka. Alia Bhatt ayaa kaalinta 7aad kaga jirta liiskan. xidigtan ayaa xiisaynaysa film jelista tan iyo caruurnimadeeda. Alia Bhatt lacagta ee haysato ayaa lagu qiyaasay 76 crore. lambarka 6aad Kangana Ranaut, inay tahay mid ka dhex muuqata Bollywoodka looguna yeero boqorada Bollywoodka ayaa dhaxal siisay in ay liiska 6aad ka soo gasho kala horeynta xagga lacagta, waxaana la ogeyn halka ku ekaan doonto muranka ee gasho. Kangana Ranaut ayaa hadda haysta lacag dhan 100 crore. numberka 5aad waa mid ka mid ah tirishooyinka ugu sareeya India waqtigan, Anushka Sharma, waxayna liiskan kaga jirtaa numberka 5aad. xidigtan ayaa halkii film ku sameysay 8 crore ilaa 10 crore, waxayna haysataa lacag dhan 100 crore. numberka 4aad xidigtan ku dhalatay Hong Kong, Katrina Kaif, ayaa liiskan kaga jirta kaalinta 4aad. filimkeeda ugu horeeyay ee Boom wuxuu ahaa mid aad lagu qasaaray, laakiin dib uma aysan fiirin gadaal oo waxay filmo guuleysay la sameysay Salman Khan. lacagta xidigtan ayaa halkii film waxa ay ku sameysay lacag gaaraysa 8 ilaa 10 crore, halka xayeysiimahan ay ku qaadato 7 crore, waxayna haysataa 200 crore. numberka 3aad kaliya ma aha filimada Bollywoodka, waxay saameyn muuqato ku leedahay filimada Hollywoodka, waxayna ku jirtaa Priyanka Chopra kaalinta 3aad, waxayna haysataa lacag dhan 225 crore. numberka 2aad waa mid ka mid ah tirishooyinka ugu guulaha badan Bollywoodka, Kareena Kapoor Khan, waxayna ku jirtaa kaalinta 2aad liiskan, waxayna faraqa ku haysataa lacag dhan 400 crore. numberka 1aad waxaa ku jirta Deepika Padukone, liiskan ayaa numberka 1aad ka tahay, waxayna xidigtan haysataa lacag dhan 425 crore. warbixinta intaas ayaana ku soo xirayaa. la wadaag asxaabtada haddii aad warbixinta ka heshay.